kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal markastoo aad dunida jacayleeda ka joogtaan halkana waa Rugta TV daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij aan kaga hadlayno fanaanka caanka ah ee Khadar Koyow oo la sheegayo in warar cusub ay ka soo kordheen xarigiisa. Fanaanka ayaa waxa uu ku xidhnaa magaalooyinka Addis Ababa ee dalka Itoobiya halkaas oo uu ku sugnaa dhawaanahan uuna ku xidhnaa. Fanaanka ayaa waxaa la soo sheegayaa in uu isbedelay xarigiisii, waxaana la sheegayaa in gudaha jeelka uu ku jiray lagala baxay oo gabi ahaanba halkaasi laga kaxeeyo oo loo bedelay meel kale. Fanaanka ayaa waxaa la sheegay inuu ku xidhnaa saldhig ku yaala gudaha Addis Ababa, laakiinse hadda waxaa loo bedelay jeel weyn. Ilaa haddana waxaa jirta cabsi weyn ah in fanaanka gabi ahaanba loo bedelay ama la geynayo jeel runtii aad iyo aad u xun. Sidaan ogsoonahay Itoobiya waxay ka mid tahay wadamada runtii aadka u jeelasha xun leh, waxaana fanaanku la sheegay in waxyaabaha lagu soo oogay ama dembiga ugu weyn ee lagu haysta fanaanka uu yahay in uu baasaboor been abuur ah doonayay inuu ku dhoofo ama uu ku soo galay. Sida xogta aanu helayno, fanaanka ayaa in badan waxaa ku sugnaa gudaha Muqdisho, halkaas oo markii dambe kasoo duulay oo Hargeysa yimid, Hargeysana ka duulay oo uu tagay Addis Ababa. Fanaanka waxaa la sheegay in waraaqahan been abuurka ah ee dukumiintiyada iskugu jira ay heshay dowladda Itoobiya, gaar ahaan ciidanka immigration-ka ee laanta socdaalka, kuwaas oo gabi ahaanba la sheegay in haddii qof Itoobiya ku sugan ama qof sharciga Itoobiya u yaala, waxa uu sheegayaa in 10 sano lagu xukumo haddii lagu helo qofkaasi been abuur. Khadar Koyow xaaladiisu waxay noqonaysaa mid halis ah haddii xaaladiisu ay noqoto in lagu helay been abuurkaas dukumiintiyada ah ee uu ku galay ama uu kaga dhoofiyay gudaha Itoobiya, waxaana noqonaysaa in gabi ahaanba lagu xukumo 10 sano oo xarig ah sida sharciga Itoobiya uu sheegayo. Itoobiya waxay ka mid tahay deegaanada runtii aad iyo aadka u xun, walow hadda ay jirto dowladda ama xisbiga hogaamiya ee Abiy Ahmed uu yahay xisbiga kaliya imika hadda furfurnaansho muujinayo. Si kastaba ha ahaatee xilliyadii kasii horeysay Itoobiya waxay xaaladii mid aad u xun, bini'aadanimada iyo humanitarian-ka waxa lagu magacaabana ay gabi ahaanba aanay ka jirin. Sidaan ogsoonahay fanaankan waa fanaan Soomaaliyeed, ilaa hadda ma muuqato cid u dhaqdhaqaaqday ama cid ka hadlaysa. Waxaa jira hal fanaan oo markasta xogta soo gudbinaya, fanaankaasna waa Cali Dhaanto oo ku sugan gudaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, kaas oo sirta uma kolba nala wadaagaya xogta kasoo kordha. Waxa uu sheegay in fanaanka lasoo dayn doono maalinta Sabtida ay 12 bisha 2020, taasina oo gabi ahaanba ay dhaaftay oo fanaanka laga cabsi qabo in lagu xukumo xarig dhan 10 sano marka la eego sharciga iyo waxyaabaha lagu haysto oo ah fanaanka dukumiintiyadaas been abuurka ah haddii ay run noqdaan weeyaan. Laakiinse waxyaabaha isweydiinta mudan ayaa fanaanku waxa uu ahaa fanaan caan ah, bulshada caanka ah Soomaaliyeed ilaa haddana lama hadal hayo, waxaana iska muuqata in gabi ahaanba fanaanka la iloobay. Xukuumadda Soomaaliya mar la sheegay in ay kasoo hadlayso ama ay ka hadashana, taasi waxay noqotay mid haba yaraatee gaabis ah oo ilaa hadda aan xukuumadda dowladda federaalka iyo kuwa madaxda ka ah Soomaaliya aanay ka hadal. Sidoo kale waxaa jirta fanaaniin Soomaaliyeed oo caan ah oo ilaa hadda aan laga warhayn sababta ay u aamusan yihiin, walow saaxiibkood ama walaalkood uu ku xidhan yahay Itoobiya. Mana jiraan fanaaniin aad caan u ah oo xusay, sidoo kale mana jiraan fanaaniin ku xusay baraha bulshada, gaar ahaan meelaha ay aadka u badan yihiin fanaaniinta marka ay xaalad la soo deristo ama fanaan kale ay u hambalyeynayaan ama ay xaalad kale kusoo kordha fanaan kale. Ma muuqato in fanaaniintu ay kula wadaageen halkaasi, waxaanay u muuqataa in gabi ahaanba fanaankani laga gaabsaday oo gabi ahaanba aan la rabin in ay xaaladiisu lasii sheego sababo aan la garanayn awgeed. Dadka qaar ayaa waxay qabaan in ay ka baqayaan haddii xaaladda fanaankaasi ay fanaaniinta qaar buunbuuniyaan haddii ay Itoobiya tagaan in la xidhayo, sababo taas ayaa loo aaneynaya. Si kastaba ha ahaatee ka Soomaali ahaan waxaa wanaagsan in walaalkeena Soomaaliyeed
ee Khadarkeyo gebi ahaanba sidii loo soo dayn lahaa loo kurgalo oo xaaladiisa lasoo dhameeyo sida uu uga badbaado xaaladda ugu dambeysa ee la sheegaya in xabsi daa'in lagu xukumi karo ama 10 sano oo xarig ah. Sidoo kalena waxaa la sheegayaa in fanaanka gebi ahaanba laga bedelay jeelkii hore ugu jiray oo jeel cusub la geeyay, halkaas oo hadda u muuqata inay xaaladdu tahay mid isbedeshay. Waxaana ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed laga doonayaa in gebi ahaanba ay u istaagaan walaalkooda.